بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم qaybtan waa muuqaal cusub oo aan iyadana uga hadlayno waterka ama qaabka oo dhirtu ugu baahan tahay biyaha dhirtu waxay biyaha ugu baahan tahay sida qofku uu ugu baahan yahay biyaha sida si lamida ay ugu baahan tahay marka waxa la dhihi karaa hadii aan biyo jirin dhirtana ma noolaa karto oo waliba qudaaraha iyo waxyaabahan wax laga soo saartaa ama cash crops ka waxyaabaas ma noolaa karaan ma jiri karaan marka waxaan qaybtan marka aan ku soo koobaynaa saameynta ay biyuhu ku leeyihiin dhirta waxay ku yeelan karaan dhirta saameyn taban iyo saameyn togan intaba biyaha oo si qaldan loo isticmaalaa waxay ku leedahay saameyn togan ama saameyn macnaha waa shay taban waxay ku leedahay dhirta waxay kaloo ku leedahay dhaqaalahaaga saameynta taban ay ku leedahay dhaqaalahaaga waxa weeye biyihii waxa kaaga baxaya hantiya kaaga baxayso haddana waxa waaye markaad dhirtii adeegsanayso ama overuse ayaad u isticmaashay markaad overuse isticmaasho ama zaid ugu isticmaasho dhirtaadii way ka dilaysaa biyihiina qarash baa ka galay marka dhinaca kale saameyn togan ku leedahay hadii si sax ah u isticmaashid waxa waaye waxna way ku soo saarayaan dhaqaalahaagiina oo controlma oo hadda biyaha aad si isla eg ama qaabka u isticmaasho marka waxa kale oo ayadana jirto oo inta badan aan aragnaa markaan beeraha tagno ayadoo loo isticmaalay biyaha qaabab ah in loo sameeyay noocyo loo isticmaalay xilliyada la isticmaalay ay kala duwanaatay waxa kale oo jirto waxay sameynayaan maanta kala biyaha wuxuu siinaa dhirtii 12 saac oo sii geedkaasi maalin kasta si aad waqti stress uga badbaado wuxuu biyaha u baahan yahay 12 saac 12 subaxnimo aad siisay 12 subaxnimo kasta oo inuu biyaha sala hadii kale water stress waa diyaar water stress muxuu sameynaa wuxuu sameynaa geedku inuu u nuglaado cudurradii u nuglaado sidoo kale uu productiga yahay markasta oo geedku oo water stress ku dhaco waa markasta oo cudurradii u nuglaanayo waa markasta difaaciisu yaraanayo maxaa yeelay adigaba hadii aad waqtigii aad wax cuni jirtay jirku wuxuu soo daayaa ama beerka waxa lagu soo daayaa wuxuu soo daayaa insulin pancreas insulin soo deynaysa marka ay soo deeysan hadhow waxay u baahan tahay hadii ay cuntadii heli weyso ay burburinayso lagu burburinayo dhacaankaas waxaan noqonayaa inuu beerkaaga dib u geysto ka bacdina waxa waaye ay cudurro kale ay ku keento sadaradeed marka isla sidaas lamida wuxuu u baahan yahay geedkuna inuu waqtigiisa ama xilligii oo loogu tala galay oo biyihii qaato si uu uga badbaado water stresska marka inta badanna beeraleydu ma sameeyaan waxaad arkaysaa geed xilligiisii dhaafay oo biyihii waqtigeedii ka gudbeen oo laamihiisii collapse ku yimid oo laamihii la laabtay ka bacdi leeyahay geedkaas maxaa biyaha loo sii waayay maxaa biyo loo sii waayay inay gaarto ma ahanba waxa waaye waa in on time lagu siiyaa biyaha si uu geedkaas productive fiican aad uga heshid sidoo kale waxyaabaha oo biyuhu markay geedka salkiisa galaan waxa waaye geedka waxay u sameeyaan inuu geedka dhirtii ka qaato carradii u furfuraan nafaqadii u miltin gareeyaan waxyaabahaas oo dhan marka xilligii u miltin garay lahaayeen oo nafaqadaas u baahnaa oo biyahaas u baahnaa oo qabowgaas u baahnaa hadduu heli waayo waxa waa dhib ka imaanayo marka waxaan beeraleyda iyo dadka beeraha baneeyaba kula talinaynaa in la ilaaliyo waqtiyadaas ay dhirtu biyaha u baahan tahay oo water stresskaas laga jiro sidoo kale waxa waaye xilliyada ay siinayaan biyahaas ama marka nafaqa biyaha loogu darayo waa in biyuhu yaraadaan oo biyuhu markaad caadi u waraabinaysid iyo markaad nafaqa biyo ugu daraysid waa labay kala tahay waxawaaye markaad aad nafaqada biyaha ugu dartid
وين بيو يرادان سي أي سليجن وقدعن نفقدي أتسينيسي because قاب كان fertilizer كا وحواي وقاب كوجو في عن بي نفقة لوسي يدرتا سدرادت هدي أي بيو أي كو يرادان أما أي بيو أي كو بتان وحواي ليجن بدنا دعايو مركل ليجن دعنا وحواي دي بقى كيمان أيو oo de nafaqadii waa ka qasaaraysa marka waa inaad xiliyadana kala ogaataa biyihiina ay ka gudbin oo waqtigiisa ay ka dhaafin water stress oo dhirti kaaga dhicin waxaasan aad ilaalisaa intaas ayaan qaybtaana ku soo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.